maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Cadale ayaa soo kormeeray dekedii dabiiciga ahayd ee degmada Cadale oo sagaashameeyadii ay maraakiib ku soo xiran jirtay isla markaana badeecadaha noocyadooda kala duwan ay ka soo degi jireen xilliyadii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay waxaana dekedani ay muhiim u tahay dawlad goboleedka Hirshabeelle oo ah dawlad goboleedka ugu da'da yar dawlad goboleedyada dalka ka jira haddii ay mar kale shaqeyso dekeda Cadale ganacsade maxamuud maxamed cali soo kurdi ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka u sharaxay xilliyadii ay shaqeyn jirtay dekedani dekeda malab leh oo ah dekeda degmada Cadale oo ah degmo aad iyo aad taariikh u ah meeshan waa meeshii mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ay ka wada faa'iideysan jirtay haday tahay rarid iyo dejid waa deked aad iyo aad dabiici u ah waa deked aad iyo aad adduunyada taariikhdeeda laga helo waa deked laga faa'iideysan karo maanta Hirshabeellena waxay u tahay guul in dekeda degmada Cadale ee malab leh ay tahay deked maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka faa'iideysan tagto dekedan wax ka dejinteeda waqti aad iyo aad ilaa dawladihii Talyaaniga iyo Ingiriiska waxay ahayd deked balse waxaan ugu hadalan taas ku qabnaa laakiin waxaan ognahay waqtigii mataqaanaa dagaaladii sokeeye dalka Soomaaliya ka dhaceen culayskii dekedda weyneed ee xamar inay dekedan soo fuushay laguna guuleystay in ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa badeecooyinka xag ganacsi iyo xag macaawino iyo xag mataqaanaa qalab kalaba ay aad iyo aad uga degaan waxay la faactay Italo degmada Cadale waxa la dhihi jiray Italo oo dawladihii shansheeye markay maamulayeen marka dekedaana waxay ahayd deked taariikhdaas leh waagi Italo la isticmaali jiray sanadkii waxay bilaabatay waa 90kii labadii saddexdaas sano ay aad looga faa'iideysanay iyo ka bacdiyo dadku ay xoolaha yaani mataqaanaa ka rartaan ganacsatada markay dhulkan xoolo ka gataan gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyri Makaraan iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Cadale ayaa sheegay in kormeerkoodu uu ku aadan yahay u korgelida dekeda Cadale maadaama dawlad goboleedka Hirshabeelle ay u baahan tahay deked xilligani waxa halkaan nala taagan gubernatooraha gobolka Shabeellaha Dhexe oo si booqasho ah noogu yimid asigoo uu korgelaya xaalada dhowr ah loo baahan yahay oo dawlad goboleedka Hirshabeelle ay ku dhawaaqday in ay ka dhigayso deked ay ka sameynayso degmada Cadale iyo dekedaanuba dekedii dabiiciga ahayd ee degmada Cadale ee caanka ku ahayd muddadii dhibaatada jirtana maartay ummadda loogu adeegi jiray waxaan kormeer ugu soo sameynay dekedan maadaama uu maamul cusub u dhismay labada gobol maamul goboleedka Hirshabeelle inaan maaragtay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay naqdaan maamulkaas meesha ugu horeyso ay maaragtay tilaabta ugu horeyso ay ka qaadi doonaan maadaama ay maamulka haddii uu dhismay ay u baahan yihiin deked iyo maaragtay meel ay maamulkaas lagu horumariyo loo baahan yahay in dekedan ay tilaabaha ugu horeeyo ay qaadi doonaan inay dekedan ay maaragtay dib u soo celi doonaan adeegeedii iyo dhismeedii iyo horumarinteedii ayaan anagana maalinta ku soo gaarnay inaan soo booqano waa wax aad iyo aad loogu farxo dekedan maadaama ay tahay horeyna bulshada Soomaaliyeed loogu adeegi jiray Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV degmo xeebeedka Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe